بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrin guud maalmaha kan waxa socotay hawshii baarlamaanka maalintii weed ka dhacday oo kacdoonka iyo hadalhaynta badan abuurtay meelo badan oo laga hadlay oo dadka hadleen nabadoon leh wax walba leh qaybo si u hadashay waxaan rabaa inaan nabadoonadii hadlay maadaama aan oday ahay nabadoonada u dhaxeeya ama ha ahaadeen kuwii garowe ka hadlay ama ha ahaadeen kuwii gobolada kale ka hadlay oo qolo walba hadalladeedii laga yaabo in cidiba si u aragtay waxaan leeyahay cidii hadal xanaf la tirsatay raaliha ka ahaato hadda cidii si qofkii si kale u fakaraya isagu raali galina wax tari mayso balse qofkii hadal si u qaatay si loo yiri waxaan leeyahay raali ka ahaada meel kasta ay ka hadleen nabadoonadu waxaan leeyahay hadalkoodii ninkii intii hadal wanaagsan tiri shirar badan baa la qabtay aad baan ugu mahadcelinayaa oo soo dhaweynayaa intii hadal xanaf la tirina dadka reer Puntland dhammaan waa ka raali gelinaya waxaan kale oo rabaa inaan dadka u sheego hadalhaynta waxa ku jirtay magaalo madaxdii baa la kala sheegtay magaalo madaxda Puntland waa magaalo madaxdii Puntland waa Garowe dadka waxaan u sheegaynaa mid gaad fariista iyo mid guri fariistaba Garowe inay tahay magaalo madaxdii Puntland dadkuna u siman yahay dadka reer Puntland goboladu iyo tuulooyinka iyo meel walba sagaalka gobol oo Puntland iyo kontonka degmo iyo tuulooyinkooda iyo miyigooda iyo badooda iyo bishigooda inay kulli isku mid yihiin dadkuna isku mid yahay hadallada soo noqnoqday oo faraha batay horta qof shaqadiisa haysta ma jiro qof walba shaqo uusan lahayn buu maaragtaa ku dhex jiraa annaga baa Allah ka dhigay sidaa darteed waxaan u sheegayaa dadka qof waliba shaqada uu leeyahay inuu qabsado waxaan maqlaayay dad baa ardooyin ku dhaceen rag leh ardooyinka labada nin oo la sheegay kaliya ma aha dad badan baa ardooyin qaba waxaan leenahay ha laga yabarayo ardooyinka dad badan baa ardooyin qaba shaqadoodina garan waayay ha laga yabarayo ninkii la oran jiray xaaji aadan afqallo Allah u naxariistay ayaa gabay tiriyay hadda ka hor muddo dheer Soomaali kula hadlay wuxuu yiri hadday boogi kugu taal nin kale tiisu ka dadan haddaad adigu tuur leedahay iyo tootir iyo qaalo mid kale to inaad toosisaa waa to aan dhicine waxa khaa'imadii looga tagay tacabadii boobay ninba qoon ku talbu ka baqay inay ka taabtaan ma garanaysaa waa fahmaysaan suugaantaas tusaalaha u soo qaatay abwaanka Allah u naxariistay hadda ka hor islaan maxamed islaan muuse naxariista janaalaha siiyay maalin 54 Puntland xilligii la dhisay dhowr sano kadib mara oo xoogaa xaalada yimaadeen oo dhulkii dawladda la boobay buu yiri ninkii warqad sharci ah ka sidanba amar waxaan ku bixinaynaa inaan waxba la dhisi karin inta arinta la isaga imaanayo hadda cidii sharciga ka baxdana waa laga baxaya waxaan leeyahay baarlamaanka hadda sharciga ka baxday oo sharciga laga wada baxay sharciga lagu soo noqdo waxaan kale oo leeyahay qof kasta oo mas'uul madaxweyne kaliya ma aha nin kasta oo mas'uul ah dadkii uu mas'uulka ka ahaa hadii ay kaga timaado arrin lama filaan ah oo mas'uuliyadii dhaxda ka baxdo oo jafaajirada iyo fariisku ta ka yimaado arrintaas oo amni darag kalifi karta markay noqoto xaaladdu inay ka sii xumaato ay gaadho in qofkaasi isaga tago mas'uuliyadda faraysa iyadana sidaas baan u leeyahay dadka reer Puntland waxaan u soo jeedinayaa dadku waa isku mid xaasha lilaahi magaalo madaxdu waa Garowe dadkoo dhan bay ka dhaxaysaa reer gaarihi ma leh reer gaar ma sheegan karaan dadka reer Puntland oo jooga iyo ummadda Soomaaliyeed oo ku nool magac kasta hal ahaadeen iyaga laga rabaa amniga inay sugaan gobol walbana cidii joogta oo cid kasta ha ahaatee degan oo ku nool baa laga rabaa amniga inay ilaaliso guud ahaanna inaan wada ilaalino baa la rabaa dawladda waxaan leeyahay khudbadii madaxweynaha waa soo dhaweynaya aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa wax micno badan bay xambaarsanayd wax qabadka dawladana waa ku taageeraya aad iyo aad baan ugu taageeraynaa aniga oo saddexdii qodob aan kula heshiiyay dawladda ay kamid ahayd markii aan federaalka aragnay xaaladiisa markii aan aragnay dadka jiritaanka Puntland in cadow loo yahay inaan wada ilaalino iyo markii aan aragnay wax qabadka maamulka hadda jira wado ayaa nagu kaliftay aniga iyo waliba rag kale oo xabsi u galay sida Maxamed Saciid Yuusuf wariyaasha kamid ah oo aad wada garanaysaan wariyaashii hore Puntland kamid ah marka aad baan isaga ugu mahadcelinayaa sida uu ila qaatay go'aankii adkaayo ahaa inaan dawladdeena la shaqeyno waxaanana ilaashano dad badanna inay arrintaas nala fahmaan mar badan baan ku celcelinay baan u sheegayaa madaxweynahana waa soo dhaweynayaa boqortooyada magaalada Qardhood oo magaalada dhaqanka ummadda Soomaaliyeed sidii madaxweynaha loogu soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynayaa haddee sidaas oo kale in cid waliba u soo dhaweyso baan rajaynayaa dawladduna
waxaa laga rabaa haddee madaxweynuhu inuusan dundumana noqon nin waxa uu maaragtay wax walba ka caroodana uusan noqon dunduma layskaga cayaarana uusan noqone dowladnimada sida uu ugu adag yahay oo noo muuqatay inuu ugu adkaado dadkuna ku garab istaagaan cadaaladna u sameeyo dadkiisa meel kastoo ay joogaan dadkeennuna waa isku mid waxaan ugu baaqayaa arrintii halkaa lagu jaro oo hadalladiisu jawaabidda ahaa xaashaa lileh ciddii wax istirsatay 1,000 jeer baan leenahay raalli ahaada dadka puntlandna waa isku mid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu